bismillaah waxaana wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka NTN ee kusoo dhawaada warka habeenimo. warkaan idii hayno daawadayaal waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh oo maanta u dhoofay dalka Imaaraadka Carabta. xog ku saabsan gaashaanla sare Farxaan Qaroole iyo xubno kale oo dalka isaga tagay. shirweynaha Interpol oo maanta Addis Ababa ka furmay iyo Soomaaliya oo ka qayb galaysa. qof dumar ah oo markii koowaad madaxweyne ku simaha ka noqotay Soomaaliya. khilaafka Dani iyo Karaash oo soo laba kacleeyay iyo wasiiro shirka laga saaray. qodobada warka dibadda aan idii haynana waxaa ka mid ah Kenya oo ku dhawaaqday xilliga la fasaxayo qaadka la keeno Soomaaliya. gaashaanbuurta NATO oo ka digtay in dagaalka Ukraine uu socon karo sanado. waa 19 bisha 6 2022 daawadayaal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. warka caawa waxaa idin soo jeedin doona anigoo ah Liibaan Maxamed Aadan. halka naga daawanaysaana waa telefishinka NTN. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo oo martiqaad rasmi ah ka helay dhigiisa dalka isku taka Imaaraadka Sheekh Maxamed bin Sayid ayaa ka ambabaxay maanta magaalada Muqdisho. safarka madaxweynaha oo 2 maalmood qaadan doona ayaa ku qotama xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, fududeynta isu socodka ganacsiga iyo sare u qaadida iskaashiga labada wadan. ilwareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in saraakiishii la soo shaqeeyay madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay qaarkood bilaabeen inay dalka isaga baxsadaan. waxay sii ogaadeen inay xil ka weyn doonaan dowladda cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, sababna ka dhigtay inay dalka isaga baxsadaan badankooda. waxaa la sheegay in saraakiisha qaarkood ay gaareen dalka Turkiga. xubno u badan CBB-da baraha bulshada ku shaqayn jirtay ayaa iyaguna dalka isaga tagay toddobaadyadii la soo dhaafay. xubnaha dalka isaga baxay waxaa ka mid ah taliyihii qaybta booliska gobolka Banaadir gaashaanla sare Farxaan Maxamed Aadan Qaroole oo dal ku yaala qaaradda Yurub iska dhiibay. xogtan oo ah mid kooban ayaa sheegaysa in Farxaan Qaroole uu gaaray dalka Belgiumka isagoo ay u badan tahay inuusan dalka dib ugu soo laaban doonin, dhawaana la soo magacaabi doono xilka uu ku magacaabnaa. sidoo kale waxaa socda qorshe isbedel ay dowladda cusub ee Soomaaliya ku sameynayso saraakiisha hoggaanka ciidamada sida taliyayaasha booliska, militariga, qaybta booliska iyo taliska asluubta. inta badan saraakiisha ciidamada ayaa lagu dhaliilay ku dhexmilanka siyaasadda maamulkii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, iyadoo hadda laga yaabo in shakhsiyaad cusub loo soo magacaabo. waxaa maanta magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ka furmay shirweynaha booliska adduunka ee Interpol qaybta bartamaha iyo bariga Afrika, kuwa oo ay ka soo qaybgalayaan wadamo badan oo Afrika ku yaala. dowladda Soomaaliya waxaa shirweynaha booliska adduunka ee Interpol qaybta bartamaha iyo bariga Afrika ku matalaya wafdi saraakiil ah oo uu hogaaminayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo shalay gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. waxaa sidoo kale maanta ay Itoobiya la wareegi doontaa hoggaanka EPCO East Africa Police Chiefs Organization, iyadoona shalay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar uu la kulmay taliyaha ciidanka booliska Itoobiya. waxaa la filayaa in maanta shirweynaha booliska adduunka ee Interpol qaybta bartamaha iyo bariga Afrika looga hadli doono arrimo ay ka mid yihiin fududeynta dadka loo haysto dembiyada caalamiga ah iyo taageeridda wadamada soo koraya, kuwa oo laga taageeri doono sidii ay u dhisan lahaayeen boolis awood u leh sugidda amniga wadamadooda. markii ugu horeysay taariikhda dalka Soomaaliya waxaa ku sime madaxweyne ka noqotay qof dumar ah, kadib markii ay dalka dibadiisa safaro kala duwan u aadeen madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka. saaka waxaa dalka ka dhoofay madaxweyne Xasan Sheekh, wuxuuna garoonka Aadan Cadde shir kula qaatay gudoomiye ku-xigeenka koowaad Marwo Sacdiye Yaasin Xaaji, sida ay NTN u sheegeen ilwareedyo lagu kalsoon yahay. madaxweynaha ayaa booqasho rasmi ah oo 2 maalmood ah ku joogi doona isu taga Imaaraadka Carabta. warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shirka dowladaha hoose ee Puntland uga socda magaalada Garowe
ilo shirka ka agdhow ayaa sheegaya in uu shirka saameeyey khilaafkii madaxweyne Dani iyo ku-xigeenkiisa Karaash, iyada oo lagu soo waramayo in Karaash uu amray inuu shirka ka baxo wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Dhabane. wasiirka ayaa la xaqiijiyey inuu shirka ka baxay ayna la baxeen mas'uuliyiinta ka socday degmooyinka qaar. wasiir Dhabane ayaa ka mid ahaa 3 wasiir oo Karaash xilka qaadis ku sameeyey walow aysan dhaqan gelin. hagaag weli halkaa naga daawanaysaan daawadayaal waa telefishinka NTN. imikana kusoo dhawaada wararkii dibadda. dowladda Kenya ayaa sheegtay in dhowaan la fasaxi doono qaadka la keeno Soomaaliya sida ay qortay warbaahinta dalkaasi. wasiirka beeraha Kenya Peter Monya oo la hadlay wargeyska The Star ayaa shaaca ka qaaday in toddobaadyada soo socda la fasaxi doono qaadkii ka imaan jiray Kenya kaasi oo la keeni jiray qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya. wasiirka beeraha Kenya ayaa xusay in horaanta bisha soo socota ee July la fasaxi doono qaadka ka imaada, isla markaana heshiiska lagu fasaxayo qaadka Kenya lagu saxiixi doono magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. tan iyo markii dib loo doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa jirtay hadalhayn la xiriirta in dib loo bilaabi doono ganacsiga qaadka Kenya kaasi oo hakad ku jiray in ka badan 2 sano, waxaana arrintan ay ka timid kadib markii Muqdisho ay ku kulmeen hogaamiyaasha Soomaaliya iyo Kenya, kuwaasi oo isku afgartay soo celinta xiriirka labada dal kaasi oo aan wanaagsanayn 2 sano ee la soo dhaafay. gaashaanbuurta NATO ayaa sheegtay in wadamada reer galbeedku ay u diyaar garoobeen sii wadida taageerada militari ee la siinayo xukuumadda Ukraine, iyagoo sidoo kale ka digay in dagaalka Ukraine uu qaadan karo sanado, sida uu warbaahinta u sheegay xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO. xogayaha NATO ayaa xusay in qiimaha maaliyadeed ee ku baxaya dagaalka Ukraine uu aad u badan yahay, hase ahaatee ay muhiim tahay in Ukraine ay iska difaacdo gulufka militari ee kaga imaanaya xukuumadda Moscow. isagoo wareysi siinaya warbaahinta Jarmalka ayaa waxa uu yiri: waa inaan u diyaar garownaa xaqiiqda dhabta ah, taasi oo ah in dagaalka Ukraine uu qaadan karo sanado, waa inaanan joojin taageerada militari ee Ukraine. hadalka xogayaha gaashaanbuurta NATO ayaa imaanaya iyadoo ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson oo isna ka digay in dagaalka Ukraine uu noqon karo mid daba dheeraada kaasi oo qaadan kara waqti badan si loo soo afjaro dagaalka ka socda Ukraine. daawadayaal, waxaa halkaasi inoogu eeg warkii habeenimo oo idin soo jeedinayay anigoo ah Liibaan Maxamed Aadan. inta aan ku kulmeyno warka xiga waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. NTN TV.